السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله برنامجكي DS 260 ayaan sii gudagalaynaa asxaab badan ayaa guuleysatay ma sha Allah teeda kalena inboxka Facebooka dad badan ayaa su'aalo iga soo weydiinaya oo ku saabsan DS 260 waan uga jawaaboyaa dadka way kala horeeyaan siday u kala horeeyaan ayaan hawsha u wadaa haddii aaminaysaan haddii kalaba maalin walba maaragtay dad baan la hadlayaa dad baan aan u jawaabaya dad baan caawinaya indhaha ay xanuunay ani oo dhan ba ma aqaano jawiga kala galay so insha Allah haddii aan wali ku soo gaarin raali iga ahoo ku soo gaari doona waa ballan waan wadaa insha Allah taa waan ka raali gelinaya insha Allah okay qaybtii labaad ayaan iskugu imaanaynaa DS 260 shalay waxaan soo baranay qaybtii koowaad tan waa qaybtii labaad halkan ayuu inoo joogay shalay okay meeshan hadda waxay leedahay waa addresska laga doonayo so addresskan waxa lagaaga doonaya waxay tahay qofka ku jooga Mareykanka ama Mareykanka address hadhow ila Mareykanka marka tagtid waxa laga rabaa meel lagugu soo diro sharciyadaadii hadii meel ba aan lagugu ogeyn inta sharci lagugu soo diraya sharciga ma waxa la hayaa wal shaaciya iska leedihiin kooda shaaciyo u taga ma Allah maya marka waa in meel lagugu soo diro so addresskan shalay ayaan ka hadalnay so next ayaa leedahay next marka dhahdo addresskan waa ka next marka dhahdo kisto yar aan soo weynay horta okay so kan marka waa iska sidii isagana markii hore iyo markii dambe sidii le waay addresska koowaada geline cityga geline stateka gelinaysa addresska qofka ku soo diray magaalada uu degan yahay gobolka uu degan yahay iyo maxaa la post codekiisa ayaa halkan gelinaysa kadibna please provide the following information where you intended to live after arriving in United States so meeshan waa meesha adiga lagugu talagalay in aad si joogtid oo ku noolaato tusaale ahaan waxa rabtaa inaad shaaciyo la noolaato so addresskan ayuu noqonayaa addresska hadhow oo maaragtay laga doonayo oo maaragtay shaaciyo inaad ka heshid kadibna ayaga aad la wadaagtid sida ayagana aad halka inta gelisid oo hawsha ku wada ayaa la rabaa so challenge waaye qofkii Mareykanka aan qofna u joogin waa problem oo guuleystay dhibaato xooggan ay ku tahay hase yeeshee haddii walaal helaysid saaxiib helaysid qof aad istaqaanaan aad helaysid oo wadanka kugu soo dhaweynaya maalmo aad la joogaysid bella waay xataa wuxuu dhihi karaa qofka anaa ila joogaya ayuu dhihi karaa fiiri wuxuu dhihi karaa anuu ila joogaya intuu dhaho addresskiisa uu ku siiyo kadibna maaragtay qol kala iska seexan kartaa oo dhalinyaro ay jiifaan ama dhalinyaro ay joogaan so qofka addresskiisa ku siinayo ma dhibba uga imaanaya in addresska isaga uu leeyahay adigu ku siiyo maya wax dhib ah uga imaanayo ma jiro so waa iska easy waxaan waxa loogu talagalay qofkan in maaragtay wixiisa meel loogu soo diro ujeedada ugu weyn ee addresska loo rabo kaas waa marka dadka Mareykanka jooga waxaan leeyahay please walaalihiina qaraabadiina ehelkiina dadka istaqaanaan marka idin weydiinayaan hadiidina hadihina ma ku siin kari hadihina because wax dhibaato kaaga ma imaanayo insha Allah okay so marka inta la imaado qofkan marka please provide the address in the United States where you want to permanently resident your resident card inaad ku hesho ama lagugu soo diro mailed marka contact information ka halkaas aad gelinaysaa saan hore u sheegnay address one wixii dhan waa waxa hadda aan ka soo hadlaynay kadibna next ayaa leedahay next marka dhahdo waxa loo soo gudbayaa mailing and permanent okay is your mailing address the same as your present address ma same ayuu yahay mise waa ka duwan yahay oo kale hadduu ka duwan yahay yes hadduusan ka duwanayna no is your current address where you want so fiiriya haddii aad dhahday markii hore laba address aad bixisay waxaa dhahday meeshan waa meeshii aan rabay in green cardkayga iyo sharciyadayda aan ku helo meeshana waa meeshii aan ku noolaan lahaa sidaas ayaa dhahday so maadaama aad sidaas dhahday labadii ayaad kala xulaysaa yes haddii ay isku mid yihiinna yes waa isku mid haddaysan isku mid ahaynna maya isku mid waay ma ahan ayaa leedahay kadibna next ayaa leedahay
markaasi next markaa dhahdo okay weli addresskiyaa lagu jiraa complete the information so haddii marka yes aad dhahday ama no aad dhahday ay kala duwan yihiin intaana buuxinaysaa badna waxyaabaha waa isku soo noqnoqdaan ha ku wareerina insha Allah hawsha si tartiiba u fiiri waa wax isku soo noqnoqda marka sida ula soco next day soco inta imaaw okay so father kii la imaaday marka please provide the following information concerning your biological parents so meeshan waa meesha laga rabo informationka waalidiinta adiga ku dhalay ma aha abtiyaashaadi ma aha adeerayaashaadi ma aha maxal laha qofka marka ehel aad tihiin laakiin waa qofka adiga ku dhalay so sure namekiisa halka ayaa gelinaysaa magaciisa abaha magaciisa oo sure nameka ah kadibna given namekana halka gelinay sure nameka waxa waaye last nameka laga wadaa given namekana waa abaha magaciisa koowaad so awowga iyo magaca abaha ayaa halkaas gelinaysaa number 1 waa magaca awowgaagi number 2 magaca abahaagi abaha goormuu dhashay halkaas gelinaysaa date of birthgiisa kadibna magaaladu ku dhashay halkaas gelinaysaa qaybtan dhan abaha ayay ka hadlaysaa father ayaa lagu dhahay so state-ka uu ku dhashay waa hadii ay jirtay hadii kalena state maadaama aysan jirin ogow abiyaasheeni state ima lehen anaga bisa state leh then waxaa dhahaysaa do not hadii kalena gobol ahaana isticmaali kartaa gobolka saaxil sool sanaag waxaa dhihi kartaa banaadir maxaa la bay bakool maxaa lahay adiga meel kasto gedo maxaa lahaa adiga meel kasto Soomaali oo gobol ah ku tur insha Allah kadibna wadankii is your father still living so abaha weli manol yahay yes ha okay hadana hooyada sidii oo kale show namekeeda geli okay kadibna magaceeda geli xilligay dhalatay geli magaaladay ku dhalatay gobolkay ku dhalatay magaaladii yes or not meeshan haday noo sheegay hadii kale kadibna next day markaas kadib family information okay intana waxaa lagu dhahay please provide information concerning biological parents KY marka fiiriya hawshi sidii ayaad ku soo waday so tusaale ahaan haday yes you know maadan dhihin laakiin hadda yes ayaa dhahday tusaale ahaan so waxay ku tusayaan mar intaadan yes iyo waxba dhihin sida uu u qornaan doono iyo markaad yes dhahdo sidoo noqon doono ayay ku tusayaan information kaasi so is your mother still living yes aad dhahday is your mother address same as your father so yes aad dhahday so hooyo aba weli ma nool yihiin oo addresskan miyay ku nool yihiin yes addresskan ay ku nool yihiin way nool yihiin waa dad nool oo weli Soomaaliya ku nool yihiin Burcay ku nool yihiin Kismaayo ku nool yihiin Hargeysa ku nool yihiin Jubbaland ku nool yihiin wax leede marka meesha ay ku nool yihiin oo aad gelisay ayaa laga wadaa so living yes still living waxay ku nool yihiin meeshaasi aba ma nool yahay ha abi hooyo way isla nool yihiin waa ka hawsha saasay ku dhamaatay qaybta kale u gudub qaybta kale marka u gudubto hadana kii aba soo haray fatherkii soo wad isagana saas oo kale okay hadii marka ay dhacdo inaad dhahdo no aad dhahdo marka maya dhahday aba ma noola ya haday waxay ahayd uu nool yahay information ka bixisay hadana waxa dhahday ma noola tusaale ahaan ilaan dadka oo dhan aabiyashooda ma wada noola soo dad ba aabiyashooda dhintay dadna aabiyashooda waa nool yahay ani oo kale abi waa dhintay so waxa leedahay is your father still living hadii lagu dhaho meeshan oo aabaha uu dhintay yes leedahay no waa leedahay ma noola ayaa leedahay kadibna meeshan waxa gelinaysaa qaybtan year of death xilliga uu dhintay sanadka uu dhintay ayaad gelinaysaa haddana qaybtii hooyo ayaa u imaanaysaa haddii hooyo ay dhimatay tusaale ahaan aabaha wuu nool yahay laakiin hooyadaa dhimatay ama hooyadaa nool aabaha dhintay so haddii hooyo ay dhimatay
waxaan leedahay is your mother still alive hooyada weli ma nooshahay maya dheh kadibna waqtiga ay dhimatay sanadka bis ah ayaa laga rabaa geli meeshaan geli okay kadibna next dheh okay informationkii fatherkii waaye haddii aabe uu nool yahay is your father still living yes marka fiiriya waxay ku kala duwan yihiin marka hadday dhimashaan dhahnay dhimasho markaan dhahdo waxaa gelisay sanadkii haddii marka aabba wuu nool yahay aad dhahdo maxaa gelinaysaa informationkan waa kii aabbo father namekii last namekiisa iyo first namekiisa dhalashadiisa maadaama yes aad dhahday wuu nool yahay aad dhahday qaybtan hoose fiiri oo citigii waxaana aa gelisay marka kadib waxaa lagu leeyahay aabbaha adresskiisa sheeg meesha uu ku nool yahay stateka uu ku nool yahay gobolka uu ku nool yahay ayaa lagaa doonayaa hooyana sidaa oo kale hooyo hadday nooshahay kadibna ayadana waxaa lagaa doonayaa statekay ku nooshahay gobolkay ku nooshahay iyo informationadeedii kale badna postal zip code Soomaali ma lahan qofkii Soomaaliya joogo postalka no iska dheh saa ula socda so informationka marka waxaa ogaanaysaan qaybta koowaad informationka guud labaad aabba ma nool yahay no ayaa dhahday xilliga uu dhintay hooyo ma nooshahay no ayaa dhahday xilliga ay dhimatay aabban ma nool yahay ayaa dhahday waxaa lagaa rabaa ha ayaa dhahday waxaa lagaa rabaa informationka gobolka uu ku nool yahay magaaladii wixii adresskii iyo wixii micnaha ayaa lagaa rabaa hooyana sidaa oo kale so waa ka marka okay so wixii marka saa ayaa u buuxisay ayaa laga wadaa meeshan ujeedada haddii inta anagana ma khuseeyaan laakiin dad waxaa jiro dee aabbo aan lehena jiro so dadkaas oo kale ayaa hawshan iska leh okay kadibna next intaan ka hadlayaa dadka aabba aan lehen waaye so next ayaa leedahay waxyar dib aan u dhigo next ayaa leedahay kadibna spouse marka spouse haddaa aragtid waa xaas okay family spouse waaye xaas waaye adiga xaaskaagii ayaa laga hadlaya so waxaa lagu dhaha please provide the following on your current spouse so xaaskaagii ayaa laga hadlaya macnaha wife ma dhahan Mareykanka spouse ay isticmaalaan because wife aan loo dhehaynin sababo jira awgeed ayaan wife loo dhehaynin bacdama Mareykanka laba naag ay isguursadaan laba ninna ay isguursadaan lama dhihi karo marka wife lama dhigo saas darteed spouse lamaane ayay isticmaalaan so lamaanaha ninkana iyo naagta isqaba lamaanayaal waay saas darteed ayay u isticmaalaan laakiin annaga waxaan casharka idin siinayaa spouseka aan idinku fasiraya waxay tahay inaadan dhihin spouse muxuu ahaa oo hadhihin spouse waxaa laga wadaa haddaad nin tahay xaaskaagaa laga wadaa haddaad xaas tahayna ninkaagaa laga wadaa easy okay so haddaad xaas leedahay geli informationka xaaska sure namekeedii iyo given namekeedii xilliga ay dhalatay magaalada ay ku dhalatay stateka ay ku dhalatay iyo waxyaabahaasi adresska spousekaagii halkaa geli xilliga aad is aroosteen meeshaas ayaa gelinaysaa magaalada aad isku aroosteen gobolka isku aroosteen halkaas ayaa lagaa rabaa is your spouse immigrating to the USA with you haddii aad ku darsatay xaaskaagii ama aad rabto inay ku soo raacdo oo asalna kugu jirtay liiska yes ayaa leedahay is your spouse is immigrating to USA at later to join you haddii hadda aadan rabin inay kula socoto oo hadhow dib ay kaaga imaan doontana no ayaa leedahay yes ayaa leedahay markaad leedahay yes hadda ayaga waxayna tusayeen no dheh waay tusaale ahaan way soo socotaa ayagoo faahfaahsan kadibna haddana qaybtan kale questionkaas kale is your spouse immigrating USA at later date to join you so haddii mar kale ay rabto inay bilooyin ay kaasoo dambeynayso halkaa ayaa gelinaysaa qaybtan ayaa gelin doontaa kadibna previous spouse next ayaa leedahay meeshaas ayaa ku dhufanaysaa kadibna current spouseka halka ayaa gelinaysaa informationkeedii waa kii oo kale haddana soo laabanayo because sabab ayuu usoo laabanaya isla informationkii ayaa gelinaysaa laakiin inta bes ay ku kala duwan yihiin hadday waxay ahayd maya ahayd haddana waxaa waaye yes waaye waa fahan soo maahan so hal mar dib aan kuu celiyo
hadday waxaa dhahday no ayaa dhahday tusaale ahaan xaasaa kuu qoran informationkeeda oo dhan kuu diiwaan galsan hase yeeshee waxaa dhahday ilama socoto ima soo raacayso kadibna hadhow miyay imaan doontaa yes meeshaasaa ku dhufane hadhow ayay imaan doontaa that's why marka pagekan kale kuugu furmaayo haddii marka xaaskaagii informationkeeda aa geliso kadibna hadda ay ku raacayso yes ayaa leedahay su-aashana way xirantay qaybta kale ayaa u gudbaynaa meeshan haddana sidii oo kale waaye okay meeshan ayadana sure namekii gelinaysaa given namekii halkaasaa gelinaysaa date of birthga xilligay dhalatay meeshay ku dhalatay stateka ama gobolka ayaad gelinaysaa countryga halka ayaa gelinaysaa adresska ayaad gelinaysaa so haddii isku meel aad ku nooshihiin tusaale ahaan hal magaalo hal xaafad hal guri iskula nooshihiin isku meel aad ka dhiganaysaa so occupationka waxaa waaye waa shaqo xaaskaaga miyay shaqaysaa hadday shaqayso yes haddaysan shaqaynaynin maxaan ku samayn karaa waxaad ku samayn kartaa housewife aa ku qoray meeshaas way ku jirtaa clickkas si meeshan click si kadibna housewife aa ku qoray okay kadibna explanationka halkaas ku qoraysaa wixii sharaxaad ah date of place of marriage waxaa halkan ku qoraysaa xilliga aad is aroosteen adiga xaaskaagii qaybtan waxaa ku qoraysaa cityga meesha isku aroosteen gobolkay ahayd iyo wadankay ahayd is your boss spouse is going with you boss le maxaa ugu haya okay yes aa leedahay spousekaagii xaaskaagii way ku raacaysaa kadibna next ayaa leedahay okay kadibna haddana inta sidii informationkii oo kala waaye okay other specify address haddii tusaale ahaan address kale ay ku nooshahay addresskii ayaad sheegaysaa oo halka ayaa gelinaysaa so sidaasay ku kala duwan yihiin hadday aday kula nooleed addresskaagii waaye haddana adig kulama noola address kale ayaa gelinaysaa information kale kadibna shaqooyinkeedii kale ayaa halkaad gelinaysaa hadday ku raacaysana sidii oo kale yes ayaa leedahay okay haddii marka meeshan waxaa lagu dhahayaa xaas kale hore miyaad qabtay haddii marka xaas kale hore aad qabtay waa gelinaysaa yes ayaa leedahay haddii kalena maya ayaa leedahay marka hal aan kuu sheego marka haddii aad damacsan tahay inaad xaas kale aad kala tagteen aad sheegto oo caruur ay kuu dhashay waa gelinaysaa mar haddaad gelisid ogow xaaskaasi magaceeda lagaa rabaa xaaskaasi ilmaha ay dhashay ayaa lagaa rabaa xilligaa isguursateen ayaa lagaa rabaa meeshaa isku guursateen ayaa lagaa rabaa ilmaha ku dhashay ayaa lagaa rabaa waxaasoo information oo dhan ayaa inaad bixisid ayaa lagaa rabaa kadibna next ayaa leedahay casharkan qaybtii labaad halkan ayaan kusoo afmeeraynaa qaybtii koowaad halkan ayaad ka daawan kartaa ama halkan midkood taabo hoosna waxaan soo dhigayaa linkiga meesha u dambeeya muuqaalkan inta midkoodna kan ama kan taabo kadibna casharkii koowaad waaye kanna waa kii labaad kii saddexaadna waan soo samayn doonaa intaan dib dambe u kulmi doono waa walaalkiina idin leh wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu